بسم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنتي وعنا وناكسن أمد الصومالية إذا لهانتين با سكن كستا إيه ساعات كستا إذين تهي سلقى نبيغا صبرهن صلى الله عليه وسلم هاي المامنين وقت صلاة دا إذين تهي سوتو كذا كدبنا بسوكان كان شالي وحكاد عاي صوماليا ريما آدي واد واوين إلا إيو حالي وحكمدها هشيسك عجائب كله oo yaabab kale oo tanaasulka badani ka muuqdo oo ay galeen Puntland iyo Somaliland magaca ugu horeeya oo lagu soo qaatay ciwaanka tanaasulka ka muuqda waxbaynu ku oran doonaa iyo sababta loo heshiiyay iyo waxa lagu heshiiyay iyo qodobadani waxa ay yihiin Axmed Madoobe iyo Xasan Sheikh shalay waxay ku kulmeen البوركا سيد محمد عبد الله حسن ee magaalada Kismaayo kulanka labada madaxweyne waxa ku weheliyay oo goobta kula sugnaa oo shirka iyo meel kasta iyo isu keenidaba ka dambeeyay taliyaasha sirdoonka ee Kenya iyo Ethiopia oo iyaguna goobjoog ka ahaa madasha mustaqbalka oo lagu asaasay maalin afraad Kenya oo ay ku midoobeen madasha samata bixinta iyo madasha mustaqbalka magac ahaanna loo bixiyay madasha ama labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland oo magac ahaan loo bixiyay madasha mustaqbalka heshiiska madaxweyne Xasan wax ma u dhibi doonaa iyo Axmed Madoobe iyo waliba labada dhinac oo kale ay la socdaan oo sirdoonada ay wax ma u dhimi doonaa mise waxba uma dhimi doona madashaas sababtoo ah madashaas waxa lagu madlan yahay kulanka koowaad sida xogo hoose aan ku helayno in Kismaayo lagu qabto marka labaadkana garow la aado talow wax ma u dhimi doona Axmed Madoobe ma tanaasuli doona Xasan Sheikh ma tanaasuli doona maxayse ka dhigan tahay warqadda Xasan Sheikh Maxamuud filla Soomaaliya iyo warbaahinta Soomaaliya warqadaha ay qorayaan qoraalada ay qorayaan iyo madaxweynihii baa tagay Jubbaland marna magaciisa ay ka dhowreen madaxweyne Axmed Madoobe iyo wax xukuumaddiisa aba ay ka dhowreen maxay ka dhigan tahay TV-yada iyo kulligoodba marka la isku daro dhinaca kale Axmed Madoobe page-kiisa iyo TV-ga Jubbaland iyo meel walba oo Jubbaland wax soo dhigto iyaduna qoraalka ay qorayaan oo ay leeyihiin waxa kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo saaxiibkiis walaalkiis Xasan Sheikh Maxamuud arintaas bal waxbaynu ka oran doonaa marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa heshiiska Puntland heshiiskan saa u qoran oo aad arkaysaan oo qodobaysan oo quruxda badan marka ugu horeysaba waxaynu ka soo qaadanaynaa ciwaan waxa looga dhigay heshiiskan cidda gaartay inay tahay Puntland iyo dawladda Somaliland iyada bal wax weyn ba kama soo qaadanayno ilaa 3 qodob baynu ka oranaynaa marka koowaad magacaynu ka bilaabaynaa Puntland waayadan oo dhan waxaynu ogeyn inaysan ka tanaasuli karin sina haddii madaxweyne la dhaarinayo iyo haddii maamul goboleed xaafad mid la dhaarinayo iyo gudoomiye xaafadeed iyo askari iyo mid walba dawladda Puntland iyo dalka Puntland kama tanaasuli jirin aslan kama tanaasuli jirin wuxuu ahaa wax aysan sina ku ilaawi karin laakiin maanta warqadan tanaasulka waxa ay kaga tanaasuleen ama madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni sababta uu uga tanaasulay kelmadaas waa wax dadka indheer garadka ah markay eegaan ay dhihi doonaan yaa war maxaa qaldan si uga tanaasulay sababtoo ah wax ay ilaawi karaan ma ahayn sidii la ogaa magaalada Gaalkacyo duq magaalo oo loo dhaarinayo baa lagu dhaarinay askar baa lagu dhaarinay xildhibaanada lagu dhaarinaya madaxweynaha lagu dhaarinaya kama tana waxay ilaawi karaan ma laakiin sabab ay uga tageen waa ka hadli doonaaye
باجرته دولة بوتلان سعيد عبد الله الدنيا وكقنعي إمام الكيس كو سومالا waxaa jirta ilaa iyo maalinkii ay bilaabeen go'itaanka laba kelmadood oo sinaba aysan kaga tanaasulin marnaba kelmadda la yiraahdo muqaddas ma ilaawaan jamhuuriyaddana ma ilaawaan jamhuuriyadda Somaliland ma ilaawaan laakiin taa beddelkeeda waxay qaateen dowladda Somaliland oo warqadda ku qoran iyaguna waxay ka tanaasuleen kelmad iskada dowladda inay ilowde shaqsiga reer Somaliland oo qurbaha meel kaaga hor yimaada oo aad isku salaantaan oo lahjadaada dareemay inuu yiraahdo reer Puntland baa tahay hadduu ku yiraahdo adiguna aad weydiisid inuu ku dhahayo waxaan ahay jamhuuriyadda Somaliland muqaddaska kama tagi karo sababta meeshaas looga tagay maanta وهل قضب كلي قضب كلا بان قدر سنة يا وليبا Somaliland سنة أي سنة وتناسل كلي دبان وحي المسكحة يدين علينية لابد يكون صدح يتوبانكي أفر يتوبانكي واحد جري شر ولا هذا أي كوذا هالليين ماشي اللي يراهدا أنكرا dowladda Soomaaliya iyo Somaliland baa la yiri ba ku wada hadlaya shirka waxa laga dhowray hal nin oo ka soo jeeda Sool iyo Sanaag iyo Cayn kuma jirin si kala hadaan u dhigo waxba qarin mayno beesha harti nin ka soo jeeda kuma jirin sideedaba waa laga dhowray dhinacan macnaha Puntland dhinacan Soomaaliya dadka ka socda waxa berigaas lagu dareeyay oo la rabay in lagu daro rag ka socday oo waliba nin baa la rabay beriga in lagu daro waxa diiday Somaliland shirka ka soo qayb gali mayna hadii hal qof oo ka soo jeeda dhinacaas uu soo galo no waa la diiday beriga wax soonaha ka soo jeeda waa diiday laakiin maanta wax yar baa inta saaleynaya shirkan maanta ay soo saareen oo warqadan laga soo saaray go'aamada badan ku qoran yihiin iyo tanaasulka iyo nabadaynta iyo adduunyada iyo argagixisada in mid laga noqdo ay ku qoran yihiin heshiiska waxa qayb ka ah Saciid Qorsheel oo dhinaca kale markii la dhaho u dhashay Eergaabo waana wasiirka caafimaadka ee Puntland u fiirso hadalkayga waa nin reer Eergaabo ah waa nin soonahaas ka soo jeeda aagaas ka soo jeeda haddana waa wasiir Puntlander ah waa fahmaysaan baa u malaynaya Somaliland waxay ka samaysay tanaasul inaba aan caadi ahayn xal lagu heshiiyey marka waxa lagu heshiiyey Saciid Qorsheel Somaliland Puntland in waa awoodeen in cid kala soo dirsadaan laakiin Saciid Cabdullaahi Deni isaguna xaggan buu kaga soo darsaday meesha waxa ka cad marka maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhex kaluumaystay Puntland iyo Somaliland oo dhexdooda uu ka soo saaray maamul la yiraahdo waqooyi bari Soomaaliya waxa meeshaas walaaloobay Puntland Somaliland weligeed lama arag lama maqal dhig waa commentiga ay ugu sheegi kartaan hal meel oo qof xukuumadda Somaliland kamid ah intii xukuumadda isaga dambeeyay oo wax Soomaaliya ka yar afkooda soo mariyay Puntland ugu yaraan maamulka Bajerteeniya nidaam noocaas ah inay yiraahdaan waa laga yaabaa laakiin maanta cadka laba nin walaaleeya oo halkaas ah wax u eg baad moodaa inuu walaaleeyay sababta oo ah Xasan Sheekh baa ka dhex qaraabtay Puntland waxa la yiri dhaxal gorayo dibad baale Puntland waxay iyadu asaastay macnaha kacdoon kacay dadaal ay samaysay maal iyo hanti iyo ciidan iyo hub iyo wax walba ku bixiyeen
in bal Somaliland laga soo jaro dhinacan khaatimo wax walba Saciid Cabdullaahi Deni cid kale maaha buu Saciid Cabdullaahi Deni ku bixiyey iyo dadka reer Puntland guud ahaanba yaana kala saarin dadka reer Puntland gebi ahaanba waxay ku bixiyeen awood bay ku bixiyeen laakiin dhaxalkaas waxa dhaxlay dhaxal goray dhabad baale waxa dhaxlay Xasan Sheekh Maxamuud oo cid la ka helay maamul buu ka sameeyey banaankaas oo dhigtay hadda marka iyagu hadafka iyo ulajeedka ay leeyihiin oo kaliya baa wuxuu yahay in maamulkaas laga saaro dhexda sidii ay u ahaan jirtay meel muran ka jiro qaybna Somaliland uga taliso qaybna Puntland uga taliso weeye warqadan iyo ulajeedkeedu waxa ay ku socotaa dhinacyo badan buu leeyahay mar gaar aynu ka hadli doonaa laakiin intaas baynu uga gudbaynaa waxaanu imaanaynaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madoobe waxay ku kulmeen Kismaayo laakiin waxa kaamarada laga arkayo waxa jira wax ka hooseeya waxa kaamarada ka muuqanaya labada madaxweyne soo dhaweynta dadka laakiin shirka ay iyagu shirayaan iyo qodobada ilaa hadda la isku mari laayahay afar buu u dhaxeeyaa cid la khasbaba ama Axmed Madoobe baa la khasbi doonaa ama Xasan Sheekh baa la khasbi doonaa sida loo keenayba Xasan Sheekh waa la keenay tanaasul baa la yiri tag Kismaayo uu ka qornaa ina suuban safriye miyahay uu ka qornaa maxkamadda Kismaayona ugu xukunaa in xabsi daa'in uu yahay una yahay magaranaysaa khaa'in qaran ugu qornaa qancin lagu qanciyay iyo tanaasul baa lagu keenay waa la keenay Axmed Madoobena isagana waa la keenay maalmahan oo dhan wuxuu fadhiyay meesha la yiraahdo Nairobi sida la ogaaba laakiin waa lagu heliyaa shirka waxa ku heliya taliyaha sirdoonka Kenya iyo taliyaha sirdoonka Ethiopia labadoo goobjoog bakiin waxa lagu wada hadlayna waa joogan heshiiskooda waa goobjoog bakiin laakiin su'aasha isweydiinta mudan baa waxay tahay Axmed Madoobe ma tanaasuli doona oo ma ka tanaasuli doona wixii uu kula soo heshiiyey madasha samata bixinta Soomaaliya iyo maamulka Puntland wixii ay ku soo heshiiyeen kolba iyadoo aynu ognahay qodobada ay soo saareen waxa kamid ahaa in uu ciduu doona la hadli karo la shiri karo Axmed Madoobe iyo maamul goboleedyadu ciday doonaan iyo kuwa samata bixinta kulligoodba siyaasiyiintu inay mid walba ciday doonaan ay la shiri karaan danahoodana kala shiri karaan waliba si sax ah waxa ugu qoray maamuladu inay danahooda ciday doonaan kala shiri karaan marka madaxweyne Axmed Maxamed Islaan in uu ka hadlo lacagta ka xaniban in uu ka hadlo aqoonsigiisa iyo waxyaabahaas oo aqoonsi uga baahnayno haddaba automatically loo aqoonsan yahay waxa soo dhan inuu kala hadlo waa u madax banaana marka ma tanaasuli doona oo madasha mustaqbalkii ay samaysteen labada maamul goboleed iyo madasha samata bixintu magacii guud ay isku raaceen oo ahaa madasha mustaqbalka oo loo balansanaa in loo yimaado Kismaayo mar labaad kana la tago meesha la yiraahdo Garowe ma ka tanaasulaya oo ma ka mid noqonaya muxuu ku tanaasuli karaa Axmed Madoobe wuxuu ku tanaasulayaa in waa wax aan macquul kolba aqliyan hadaa fiirisid hadaan khasab meesha jirin aan la khasbin oo afduub iyo khasab haduusan jirin Axmed Madoobe ma ka tanaasuli karaa 5 sano wax kale oo isaga hadda laga rabo inuu ka tanaasulo meesha ma yaalaan in uu 5 sano ka tanaasulo oo uu noqdo madaxweyne ku jooga mandate-ka ay ku joogaan lafta gareen iyo Hirshabelle ninka joogay oo la yiraahdo Goodlawe iyo Qoorqoor oo kale doorashadii baarlamaankoodu soo doorteen kuma joogaan laakiin mandate madaxweyne Xasan uu siiyey bay ku joogaan mandate-kaas oo kale Axmed Madoobe ma qaadan doonaa inuu ku joogo mise 5 sano u kirkiran
sababta oo ah madaxweyne xasan inuu yimaado inuu lacagaha u sii daayo inuu aqoonsado waxaasoo dhami tanaasul bay ahayd axmed madoobena waxaa looga baahan yahay inuu tanaasulo si uu waxan ka maqan u helo oo ka tanaasulo 5 sano oo ka tanaasulo siyaasadan hadda ku salaysan madasha mustaqbalka inuu ka tanaasulo ee uu noqdo qof rabaayada oo u rabaysan dhinacan iyo madaxweyne xasan macquul ma tahay mise siduu inuu suuban samriye u yiri baa ka dhab ah oo qaadan mayo xasan sameeyahay nin tanaasuli kara oo ka tanaasulaya wixii uu sheegay marka wax yar markaan milicsano labadoodaba inaysan tanaasulayn xaaladu kir iyo kac ay ku kala tegi doonaan meeshaana anagu waa tagnay iyo beesha caalam iska dhaadhicin iyo labadan dowladood oo deriska ah oo meesha jooga iska dhaadhicin iyo nidaam noocaasa waa tagnay waa wada hadalay kadibna bay u eg tahay sababtana way idin sheegaya waxaad ka garan kartaa warqadaha ay soo saareen filla Soomaaliya warqada ay soo saartay iyo warqada Axmed Madoobe page-kiisa laga soo qoray amaba laga soo qoray TV-ga Jubbaland markii ay warka baahinayeen soo dhaweyntii maanta madaxweyne Axmed Maxamed Islaan uu sameeyay walaalkiis Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ma walaalkiis Xasan Sheekh Maxamuud waa arrin cajiibkeeda leh oo yaabkeeda leh marka waxa laga yaabaa inaan wax badan isweydiino dadkeena Soomaaliyeed inaan isweydiino maanta Soomaaliya shalay meeshii la marayay 2000 bartii la marayay iyo maanta oo 2025 ka abarta la maray oo ah 25 sano ma ana moodaya mise waa isu eg tahay wali waa lagu dhex jiraa maadaama Axmed Madoobe iyo Xasan oo maanta 2 nin oo Soomaali ah 2 nin lagu dhex jiro oo wadamo kale ay dhexda kaga jiraan oo meeshii ay tahay 3 wadan iyo waliba maqaarsaar imaaraadka oo maqaarsaar oo ku jira isaguna ilaa iyo 4 iyo beesha caalamka oo korsa uga fiirinaysa oo communique ka soo baxa sugaysa ma idin la tahay 2000 meeshii la maray in wali la maray waaye bal waa arki doonaa waagu waxa uu ugu bariyo haddii alla yiraahdo iyo communique ay soo saaraan waa arki doonaa laakiin kolba qof walba oo aqli leh wuu arkaa 2 nin oo ina suuban samriye iyo ina maxay ahayd ina heblaayo inaan sinaba midna inuusan tanaasul samaynin hal tusaale oo idin sheegay Axmed Madoobe ninka la yiraahdo dhowr iyo 10 sano oo meesha xukumayay tiisa bay noqotay wax kale ma noqon marna tiisa kama tanaasulin intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh nabadgelyo nabaadiina iyo nolol konteed warsaniyo